Salmo Maxamed Abshir oo 11 sano jir ah labadeeda gacmood ayay ku weysay haraadiga hub ay ku ciyaaraysay oo ku qarxay. Salmo Yariisey waxa ay la soo kortay dhibaatada soo gaartay ee naafaysay barbaarinteeda iyo waxbarideedana saameyn ayay ku yeelatay. Waxa ay ahayd gabar dhigata dugsi Quraanka ka hor inta aysan dhibaatada soo gaarin. Naafinimadu kama reebin waxbarashada, waxa ay ku laabatay barashada Quraanka, balse maanta lama mid ahan ardayda kale oo ay wax la barato maadaama ay naafo ka tahay labada gacmood. Qoraalka ama dhigaalka Quraanka waxay u adeegsataa lugaheeda. Waxyaabaha cajiibka ayaa ah in ay Salmo tahay gabar furfuran oo ku qanacsan qadarta Rabbi. Salmo waxay rabtaa inay noqoto dhakhtarad. Waxay intaasi oo dhan ku gaari kartaa kuna hiigsan kartaa mustaqbalkeeda in ay hesho gacmo macmal ah. Waxaan rabaa inaan noqdo dhakhtar dadka Soomaaliyeed daaweeyo. Waxaan intaas dhan ku samaysan karaa gacmo inaan helo gacmo. Dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay iga caawiyaan si aan u noqdo dhakhtar daaweysay. Qoyskaan ka soo jeedo waa qoys danyar. Waxaan u baahanahay inay haysan garab istaagtaan. Naciima Cabdullaahi Nuur oo ah hooyada dhashay Salmo ayaa ka hadashay maalinta dhacdada ay la kulantay Salmo Yariisey. Alxamdulillah, Salmo waxay lixaadkeeda ku weysay waxyaabaha qarxa oo haraadiga waxyaabaha qarxa meelaha yaala ayay soo qaadatay, way garaacday, waxay ku weysay labadeeda adin, waxaana ku dhaawacmay taariikhdaas 3 cunug oo 2 iyada la dhalatay iyo ayada. Qadartiina waxay u badnaatay ayada ku weyday labadeeda adin. Alxamdulillah, taariikhdan waxay ahayd 2009 bishii koowaad. waxayna ku dhaawacantay guriga dhexdiisa. Anna waxaan u maqnaa shaqo xilliga maxay ahayd maqrib. Salmo Yariisey waa gabar hankeeda uu sareeyo, naafinimada aysan niyad jabin, kalsooni ay ka muuqato. Waxa ay ka soo muuqataa barta bulshadu ay ku xiriirto ee TikTok. Daahir oo Salmo la dhashay ayaa walaashiis u noqday garab dhiirigelin ah. Waxa uu u furay koontada TikTok ee maanta ay kula xiriirto bulshada. Salmo hadda waxa waaye sidii hore ma qof weyn noqotay inay mustaqbal oo yeelato hore u socotay rabtaa. Marka waxaan ku dadaalaynaa in horta gacmaheeda waxa waaye ma soo laabanayaan wax adiga u dhigmo oo insha Allah lagu dadaalo wax gacmaha la geliyo kale. Ugu dambeyntii hooyo Naciima Cabdullaahi Nuur ayaa nala wadaagtay sheekooyin murugo leh oo ku saabsan nolosha gabadheeda, iyadoona sheegtay Salmo inaysan awoodin inay xaajada gudato xilli ay ku dhowdahay da'da qaangaarka. Waxa ayna dalbatay in gabadheeda laga caawiyo inay hesho gacmo macmal ah. Horta markii waxbarashada iskoolka aniga tabar ma haynin alxamdulillah, laakiin xilligii ay noqotay hadda inaan waxbarasho geeyo oon ku dhiiraday caqabado waxa yimid ah gabadhaan inay isla fariisan karin galaaska ardayda, waayo gabadhaan wax ku qortaa lugta, galaaska ardayduna waxay wax ku bartaan form kursi iyo miis, waayo kursiga iyo miiska arday gacan la wax ku qori karo. gabadhaan dhulka inta la fariisayna wax lagu bari karo, waayo ardaydu markii la soo daayo bareega cunug walba waa hamuum iyo baayayaasoo markuu baxayo hore u dardaraa. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed Salmo sidii ay u gaarto mustaqbalkeeda ama ay u noqoto himilada hamiga ay rabto maanta inay gaarto oo ah titooreso bulshada Soomaaliyeed nagana caawin karaan. Waxaan rajaynayaa Salmo inay nagala soo xiriiraan Salmo Maxamed Abshir ama oo ah gabadhayda anna aan ahay hooyadeed lambarkan inay nagala soo xiriiraan bulshada Soomaaliyeed. Qofkii raba Salmo inuu wax u qabto caawiyana waxaan rabaa lambarka ay nagala soo xiriiraan 544 97 25 mar labaad furuhu waa 544 97 25. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu halista badan ee haraadiga hubku uu waxyeeleeyo bulshada. Waa wadan sanado burbur ku soo jiray, dhacdooyin naxdin leh ayay bulshadu ka dhaxleen dagaaladii sokeeye. Nimco Muxudiin Cardoofe, telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.